السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada dhamaan ardayda ku xiran channelka. Waxaan idin leeyahay marka koowaad iyo marka labaad ku soo dhawaada channelka. Kaas oo idinkaga haqabtiri doona dhamaan baahiyaha u qabtaan grammarka Englishka qaybihiisa kala duwan. Cashirka hore waan soo qaadanay. Marka waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada qaybta labaad ee cashirka part 2ga. Kaas oo sidaa hore idinkaga ballan qaaday. Aan ku soo qaadan doona pronoun-ka verb be iyo noun. Pronoun-kii sidaan sheegnay waa magacyaalkii, be waa verb, dadka qaar waxay yaqaanaan verb to be, ani verb be aan u garanaya. Waxaanu ka raacinaynaa noun, marka magacyaal ficil be aan ku daraynaa, magacaan ku daraynaa. Tusaale oo kale, I is a pronoun. I am a teacher. Haddaan idhaahdo tusaale oo kale, aniga waxaan ahay macallin. I am a teacher. I is a pronoun. I is a pronoun. Is a verb. Verbka hore saan soo sheegnay, waxaan soo qaadanay verb is oo ah singular, iyo verb are oo ah plural, iyo now waxaan gelinaa another one oo adeegsanayno am. I am a teacher. Aniga waxaanay macallin. A teacher here, now teacher being a noun, waxay ka bilaabanaysaa saan sheegnay T, which is a consonant, so we'll have a and an erigan an article a. I am a teacher. So waxaan haysanaa pronoun am oo ah verb be iyo a teacher. A teacher. I am a teacher. In singular term, waxaan u kala qaadinaa qayb singular ah iyo qayb plural ah. Qayb jamaca iyo qayb mufrad ah. Mufradka aan ku bilaawno. Pronoun I, verb be, am, noun a teacher. You are a teacher. I aniga markaan iska bilaabayo waayo ama aniga aan iska hadlayo. Laakiin haddaan rabo dhagaystaha mid ka mid hadduu yahay macallin, you are a teacher. Adiga waxaad tahay macallin. So am you are. She is a teacher. He is a teacher. It is a school. So meesha marka wax yar oo ardayda inta badan confusion gelinaya jiro, laakiin waan bayaaninaynaa. I want to make it clear. I waxay qaadatay am. You waxay qaadatay are. She waxay qaadatay is. He waxay qaadatay is. It waxay qaadatay is. So she, he, it is. She ayada, he asaga, it. It marka mostly waxaa loo isticmaalaa thing ama shay markuu yahay waxaanan marka ayada ah adi shay ah aanu qof ka soo haro. I aniga, you adiga, laakiin she, I waa first person pronoun, you waa second person pronoun, she, he, it waa third person pronoun. Gacan saddexaad ay gaaraysaa. Aniga markaan idhaha adiga, so she ayada, he asaga, it oo ah yani shay aad ku magacaabayso, gurigaan oo kale dhigi karta, baskiilkaan oo kale dhigi karta, it can be any, waxay noqon kartaa. So singular hadday ahayd I am a teacher, aniga waxaanay macallin, adiga waxaa tahay macallin, ayada waxay tahay macallin, asaga wuxuu yahay macallin, kani waa school hadday ahayd. Pronoun I in singular I hadduu ahaa pluralkiis muxuu noqon karaa we. So ani kaligay haddaan ahaa macallin meesha ka taagnaa, haddii aan u yeero saddex macallimiinta ama colleagueskayga ama la shaqayso, waxaan dhahayaa we waa annaga, lababa haddaan ka badan. Laakiin hal markuu yahay waxaan dhahayaa I. So we am maxay noqonaysaa marka? I am aniga waxaan ahay. Markaan badan maxaan dhahayaa annaga waxaan ahay. We are
teachers. So eedana baxayso teacher waxay noqonaysaa plural. Here now we will have as usual sida cashir hore aan uga soo hadnay sida caadadii noo had cashir hore aan ku soo qaadanay shayga markii jamca laga dhigay inta badan inuu s qaato. You are a teacher. You are a teacher. You maxay noqonaysaa marka pluralkeeda? You mostly sanku oga it never changes but teachers ka ayaa s qaadanayso. You are a teacher. You are teachers. So gacanta labaad first person pronoun I waxay noqotaa we. Second person pronoun you ma isbedesho. She is a teacher. They are teachers. She waa hal qof laakiin markay badan yihiin ala say they. Is waa singular markay badan yihiin maxaan dhaynaa waxay qaadanayaan verb are. A teacher eeda baxayso. Here you will have s at the end. So here now hal shay inaad note garayso isku day marka arday ahaan hal shay inaad fahantaan ka rabaa. She, he, it maadaama gacan saddexaad isaga ayada iyo shay kale magaciisa aan soo qaadanay jamacooda they kama guuraan. So waxay wada adeegsanayaan they are teachers. He is a teacher. They are teachers. It is a school. They are schools. Okay. I waxaan ka hadalnay waxaan dhahnay waa pronoun. Pluralka waa we. You are a teacher. You are teachers. She is a teacher. They are teachers. He is a teacher. He is a teacher. It is a school. So B I haddii marka we ay noqotay maxay noqonaysaa maxay noqonaysaa is maxay noqonaysaa so which means pluralka first person pronoun, second person pronoun, third person pronoun, plural termka verbka wuxuu qataa wax la isla ogyahay. Nounkee ku soo haray I am a teacher. haddii ani keli aan nahay I say aniga a teacher. We markaan dhaho already waxaan soo aragnay verbka pronounka inuu we plural noqonayo, verbka be inuu noqonayo. Teacher we omit a, we add s at the end. So waxay noqonaysaa we are teachers. You are a teacher. You are teachers. Marka dadka waxay la yaabi doonaan maxaa labadan aan uga tagayaa oo she bas aan uga qaadanayaa. laakiin waxaad ogaataa she, he, it waxay wada qaadanayaan dhammaan they. Marka she waxay noqonaysaa they. He wuxuu noqonayaa they. It waxay noqonaysaa they. All of them. So he, she, it, they. Marka meesha waxay wadaagaan is. So that's why ay wada qaadanayaan the word or the verb be are. A teacher. A school. Sorry. So they are you omit a here teachers. laakiin kana soo haray waxaan dhahayaa they are maadaama kuwan ay they isla wada qaadanayaan isla wada qaadanayaan meeshan waxaa soo haray school. Then you say schools. Okay, let's practice. And isku dayna marka. Here in my right hand, in my left hand we have singular, and in my right I have plural. If I say tusaale kale hal gabar ayaan weydiin su'aashan waxaan iri who are you? waxay tiri I am a girl. aniga waxaan ahay gabar. mid dhinaceeda taagan. So qofka koobaad first personka waxay tiri I am a girl. qofka labaad maxaan dhahayaa marka you are a girl. She maxaan dhahayaa marka si cashir ku soo qaadanay she is a girl. pluralkeeda I maxay noqonaysaa we are girls. waxay noqotay eedan saarayna girl isaan ku daraynaa.
You are a girl. You are a girl. Or you are girls. Pluralka verbka nounka ayuu qaadanaya. Verbka isbedelayo because are still are. She is a girl. They are girls. Okay, now let us start, or let's go in the section called contraction with be. I am going to contract a word and make it one simple word, and I'll add a verb as a noun later on. So here I have the word I am. I am a teacher, I am a boy, I am a girl, and so forth and so on. So I am. So in contraction, the rule now, we will have we will have apostrophe, and then we will have I am a teacher. Okay, pronoun let's add verb be. I, verb am, pronoun I, verb am, then contraction kada ku noqonaya I am. Contraction waxaa la yiraahdaa shortening of words in English. Tusale, I am a teacher. So I is a pronoun, am is verb be, I am is now the contraction. So so you put apostrophe and then you write, you add m. I am a teacher. She anumana mark. She is a pronoun, is a verb be, then she's, you contract it. She, always the first letter of the verb is going to be omitted if you look at it keenly. يعني دي قفك وفيريو سيدجن ديب وفيريو حرفك وهرية أما letter ده حرف ولا أريجا word ولا letter ده وهريسة verb كأيا لا omit كرينيا. He is a boy. She is a girl. He is. It is a cat. It is a cat. It's a cat. Then let's go to you. You are. So you remove the first alphabet or the first letter. We are. They are. They are students. You are a student. We are students. You are students. They are students, or they are students. So نواقع وحية هي وعندها they are، لكن ما كان سوقا عندها they are students. Let's practice now. My teacher is a woman. على مدى إذا محتاج قف دمرة. What will be the answer? So my teacher maxay tort maadaama meesha ereyga woman aan aragnay who is my teacher, so my teacher maxay noqonaysaa she, isn't it? If I'm not wrong, she is nice. So she haddaan qaatay is tan contraction aan ku hagaajiyo waxaan dhahayaa she's nice. My dog has 4 puppies. My dog has 4 puppies. So my dog has 4 puppies. They are cute. Because my dog asaga kaligii marka la yiraahdo dadka waxay u qaadan doonaan, I'm sure ereyga dad confuse ku noqon doona ku wareer doona. Eygayga wuxuu wataa 3 yar ama 4 yar. So they are cute maxaa loo dhahay markaan, because ayaga 4 ah jamac waay 1 2 3 4. Let's say 1 2 3 4. They 4 puppies. They are. I like you. Ani waan ka helan ku yiri. I like you. So maxaan dhahayaa you are friendly. I have 2 sisters.
aniga waxaan leeyahay laba walaala ah. So maxaan dhahayaa dash students. So I aniga have 2 sisters. dadka qaar waxay u qaadan doonaan aniga laba walaalaan leeyahay. They are students. That won't be because labada ku dar qofka kale, because aniga markaan ka hadlayo laba walaalaan leeyahay waa wada joognaa. Students are lagu sii meesha. Waxaan dhahaynaa we are students because ayaga kaliya daan leeyahay waxaan dhahayaa they, laakiin maadaama saddex aniga aan ku jiro I'll say we. Jamaa, we are students. So let's go to the negative now. The negative parts of the first lesson. I am a teacher. Aniga waxaan ahay a teacher. Negative Soomaalida waxay yaqaan inta badan waxay yaqaan diidmo. Okay. I am not a teacher. haddaan iri I am a teacher, gabadhan waxay ku tiri I am not a teacher. I am not a teacher. So hadday waxay ahayd I am not markaan ka bixiyo waxay noqonaysaa I am a teacher. aniga waxaan ahay macallin, laakiin gabadha waxay leedahay I am not. So ereyga not waa no amal, waa aniga macallin maahay. So contraction in now the negative. I am not a doctor. So waxaan rabnaa I am not a doctor dan inaan contraction ku samayno negative-ka ah. waan naqanaa I inaan apostrophe gelinaysa an am leenahay, sorry, m. I am not. Next. You are not maxay noqonaysaa you iyadoo saan u qoran iyo you are moho, then you remove a apostrophe imaanaysa meeshaan. So you are not or you aren't. 2 ways oo samayn karnaa. haddaan idhaha you are not, sometimes I can use another way oo ah you inaan gooni u qaato are not aan isku daro aan idhaha aren't ooda aan omit gareeyo. You are not, you aren't. She is not a doctor. She is not a doctor. She isn't a doctor. She's not a doctor. So 2 ways aan kala qaadi karaa. She's waan dhihi karaa oo ayada waan bixin karaa, or I can say she isn't or nt da waan ka saari karaa. It can be she is not or she isn't. He is not a doctor. inta waxaan dhihi karaa he is tan aan bixin karaa, meeshaan apostrophe gelinaa he is aan dhihi karaa, or he the gooni stand alone aan ka dhigayaa, is tan ayaan waxaan ku darayaa labadan isku qabanaa, kadib oodaan bixinayaa, apostrophe halkaan saaraa, waxay noqonaysaa he isn't a doctor. Then it is not a city. Ma ahan caasimad. It is waan dhihi karaa oo ayadan waan saari karaa, apostrophe aan gelin karaa, notadan kaligeed stand alone waan ka dhigi karaa ama xor waan siin karaa a city. waxaa kaloo samayn karaa it intaan gooni bixiyo is tan aan not ku daro, apostrophe aan geliyo oodaan ka tuuro, it isn't a city noqon kartaa it is and it isn't. We are not doctors. So we are eedan intaan saaro meeshaan isku keen labadan ayaan apostrophe gelin karaa. We are not doctors. It is correct. Secondly, waxaan dhihi karnaa we inaan gooni xor ka dhigno aan ku darno not aan ooda ka saar aan apostrophe saaro. We aren't doctors. We aren't doctors. We are not doctors. You are not teachers. You saas oo kale you are aadan eed intaan saaro apostrophe geliyo you are not teachers waan dhihi karaa. You intaan xor ka dhigo aadan aan notadan ku daro xiriiriyo ayaan oodan tuuro aan apostrophe geliyo you aren't waan dhihi karaa. It is the same. They are not teachers. Same case applies to they. eedan waan tuuri karaa, apostrophe gelin karaa, or they intaan gooni u dhigo aadan not aan ku daro oodan ka tuuro aan dhihi karaa they aren't. They are not, they aren't. We are not, we aren't. It is not, it isn't. Let's practice. It is not.
it is not, it isn't, isn't, aren't. So here waxaan qaadana ereyga isn't, aren't. The woman dash nurses. So naagahan ma ahan lagu yiri, nurses ma ahan, they are not nurses, kalkaaliyaal ma ahan. So the women marka qishan ku siinaya, I'll say haddaan dhihi lahaa this woman dash nurse on esta ka bixiyo on this woman dhaho, waxaan dhihi lahaa isn't ma ahan kalkaaliso, laakiin way badan yihiin. The women, one thing you need to know, hal shay inaad ogaato aan kaa rabo waxay tahay farqiga u dhaxeeyo ama qaabka jamac looga dhigo woman ereyga dumarka marka yiraahdo woman kooda markuu singular yahay waa woman with an WON, laakiin marka mufrad yahay waa OAN, marka jamac ka dhigta ama plural uu yahay ayuu ii qaataa. So maadaama lagu yiri women aan lagu dhihin woman aan inta ee laga dhigin, dumarkii way badan yihiin waa la isku qabtay waa jamac. So the woman aren't, the women aren't nurses. Who are they now? Marka maadaama the women are not nurses or aren't nurses, waxay yihiin aan ka rabo jumlada ku sameeyay markaa maxay yihiin waa dhaqaatiir aan rabo tusaale kale. So labadan jumla kan aad qaadanaysaa kanaad qaadanaysaa waxaad ka sameynaysaa, so labada jumlad markaad isku fiiriso aad sameynayso mid way samaysan tahay oo negative ku jiro, tan laakiin waxaan ka rabaa inay noqoto qaab positive ah. How? Ma ahanan iri kalkaaliyaal, they are not nurses, laakiin maxay yihiin? They are doctors. So I say they are doctors, waa dhaqaatiir. So laba waxaa isku keenay negative iyo positive sentences or positive or negative, yeah. So the women aren't nurses, they are doctors. Okay, gabadha waa ujeedaa marka. This girl dash teacher, macallimiya gabadhan waa maya. So maxaan dhahayaa ma ahan gabar, so erey diidmaa soo galaya meeshan oo negative ah. I say this girl is not or isn't a teacher. Who is she? She is negative ka dhana baxay. So waxaan dhahayaa she is a student. She is a student. She is a student. This animal dash a dog. Xawayaanka noo muuqda ma ahan a, so diidma negative ay maanahay. So negative ka always waa inaad fiiriso, laakiin waxaad u fiirinaysaa is iyo a waxaan qaadanayno. Is aan u qaadano, she is, they are, singular, plural. This animal isn't a dog. Ma ahan, waa singular, waa hal xawayaan hadduu badnaan lahaa ma dhihi lahaa this animal. So kana wuxuu noqon lahaa plural, ESE, these animals. Intana S lagu qaban lahaa plural ta, laakiin hadda waxa waaye waa singular. Waan arki doonaa termska qaabka these ka labada ay ku kala yihiin iyadoo isku qaab loogu dhawaaqayo, laakiin say ku kala yihiin aan ku tusayaa hadduu ilaahay raacashada dambe. This waa mid, tanna waa this. Okay, isku qaab loogu dhawaaqaa laakiin way kala macno duwanaan doonaan. Plural iyo singular ay kala noqdaan ayaan rajaynaynaa ee cashirada soo socda. So this animal isn't a dog. It is muxuu yahay marka duud, waxaan ani negative, waxaan ani xawayaankani ma ahan a. So muxuu yahay? It is negative ka baxayo, waxaan dhahaynaa anaga ku raacsan inuu yahay mukulaal ama nyaanyur. So it is a cat. It is a cat. Okay, let's now have ereyga a verb plus an adjective. Okay, a fire is warm. Adjective horta maxaa waaye? Soomaali ahaan marka waa adjective. What's an adjective? Aan isweydiino. Waxaa qurux badan ardayga inuu markuu cashirkan qoranayo erey walbo marka ayada uu sameeyo definition uu raadiyo. Adjective horta maxaa laga jeedaa? Inuu cashirka pause ku qabto adjective uu raadiyo macnaheeda horta. B1 soo barno waa adjective. Adjective is a word naming an attribute of a noun. Tusaale kale shay aan ku sheegay. Waxaan ku yiri kani waa dab.
dabka wax aan kuugu sii faahfaahin karin maxaa oo haddii aan kuugu faahfaahiyo hore ka fahmay yani attribute-kiisa saxda ah ama yani micnihiisa guud shayga suu yahay sheegayo tusaale kale a fire is warm so an adjective waa a word naming an attribute of a noun tusaale kale noun aan ku sheeg fire aan ku yidhi dab haddaan ku yidhaho qofaan weligeed aqoon inaad fahansisaa laga rabaa dab waxaan ku yidhi tusaale kale waxaad joogtaa magaala ku dhalatay muqdisho kale wiil yara ku yimid oona weligii maroodi arkin saad ku fahansiinaysaa waxaad tiri bannaanka maroodi aad joog wixii qofka aad intaad u sheegto maroodi inuu yahay uu ku fahmi lahaa ayaa laga rabaa marka waxaan dhahayaa maroodiga waa xawayaan weyn so waxaan ku faahfaahin dheeraad aan siin lahaa nounka ama magaca ayada shayga magaca leh ayaa la yidhahaa adjective tusaale kale a fire is warm dabka waa u kulul yahay a fire is warm dabka maxaa lagu yaqaanaa inuu warm yahay an elephant is big tusaalehan soo qaad already waa kan an elephant is big qof aad tiri bannaanka maroodiga taagan soo fiiri marka haddii aan dhaho bannaanka maroodiga taagan u baxo inuu iska soo noqda macquul laakiin daayiraha maroodiga waa xawayaan weyn bannaanka markuu tago wixii weynaa uu raadina exactly saddex haddii shay lo iyo maroodi iyo ari haddii isaga joogaan maroodiga wuu soo qabanaya inuu kan kale ka weyn yahay because you have given out the attribute ama tilmaanta bixisay ama shaygii micnaha guud ka sii bixinaya so a butterfly is small balanbaalista waa ay yar tahay a butterfly is small a ball is round so ayay weligeed aan baloon arkin harta inaad fahansiiso baloon wuxuu yahay ayay baloon waxa la jiro saan waaye laakiin inay fahanto waqti ku qaaday laakiin tira balooniga waa wax wareegsan waaye kubad saas round ah hadhow haddii loo keeno kan ma balooniga la sheegaya kule she will tell you is this what you have been talking about balooniga miya exactly already waa dib ugu soo dhacaya so these things now they describe or they give out more about the nouns the fire is warm Sarah is happy so Sarah is happy how will you know what describes the status of Sarah she's happy you can see it from her face so always adjectives shaqada ay qabtaan waxay they describe the noun so let's now go straight to now and make a sentence jumlad inaan dhisna isku dayna marka maadaama aan dhahnay tusaale an elephant is big a butterfly is small a ball is round a fire is warm Sarah is happy now let us create a sentence and kala jijibino here we will have a noun an orange lean white is وفعل يعني as in verb be let's see معناها ka bixin doonto is round wareegsan tahay jumlada marka aan ka dhigna jamac oo kale in wixii iska bedelaan aragna marka an orange was one jamaca waxay noqonaysaa ama plural waxay noqonaysaa oranges is waxay isu bedelaysaa a round isu bedelayso so here marka macnaheedu waxaad arkaysaa adjectives ka always pluralka inaysan qaadan if I'm not wrong Jane is young I can say she is young oo meeshan pronoun waan ka samayn karaa Ada and Rob are intelligent so Ada is a girl Rob is a boy what are they labada qof aan fasalka kala soo baxay maxay yihiin they're intelligent laakiin waxaan dhihi karaa Ada and Rob are in a plural usme maxaan dhahayaa they are intelligent okay aniga marka pronoun kan sameeyo already hadda hordhacay soo siiyay kana pronoun ka sameeyo oo waxaan iri Jane ayaan ka bedelay she it was a pronoun Ada and Rob ayaan bedelay oo waxaan ka dhigay they I maxay noqonaysaa markan I am happy aniga waan faraxsanahay it is round marka it is round what is round the ball is round the orange is round the oranges are round we are young we waa anaga waa badanahay laakiin hadduu hal qof imaan dhaya he is young she is young it is young something like that ayagaan dhahaya marka dad xagay jiraan dhiraba ciyaalkaas way yiri they are young okay let's practice here we have ereyga small rich
dirty. He is not clean or he isn't clean. نظيف ما أنا What is he? محوية ما هتكون راعيسة. He is dirty. He is dirty. Deserts aren't wet. They are. So desert على رأس حرها. دول كلام دقان كا. ما أهل ملغين. Here you have sad, sweet, and dry. So first أرضية تاي. Lesson هنقارن دون هذا إلى إيرها. أنتو كجرو أوقات كله استعمال dictionary. لكن ولي ما دنقارن كاسو قادنا تاي. ولي أرضي. هوس. So first you need to know the meaning of this. وين معناها وقاته. Like sad. معناه محاوي sweet. معناه محاوي dry. معناه محاوي. In order for you to determine the opposite of the word now that we mentioned. So desert صحراء aren't ما أهن wet ما قينو. So ما عكس كوا ما opposite كوا wet dry. So they are what? They are dry. They are dry. Ice cream dash. So هي لبع على مدى الوصار box can is somehow yellow and this one is somehow purple. So is will go to this. Then cold, warm, small, big will go to this. Corresponding like that. So ice cream now just one. So hadena ice cream is what? قبو ميمسو كله. Cold وقبو, warm وقندعم كلل, small wire, big ووين. So ice cream is cold. Ice cream قوية. A fire dash دبكة single. A fire is cold ميا warm ميا good ميا bad ميا مفعني هاي مفعني هاي مقروية هاي مكل هاي. Yeah, a fire is warm. A fire is warm. The tree dash. The tree وهالجدا. So معناها the tree is tall, short, young, old. The tree is tall. Get كوا وداري هاي. أكيد جيدا بدنا نقول لا the trees اسمه كدر لا. is تبعنا نقول لك tall. Correct. The bushes محاوي. جيدا هم كي بحان جيدا ركسوس بحاو على الشراب سما herbs لو يقانو. أما bushes كما يعني هوس كسو بحاي يريركا. حولها هوس إيه ونسيد الله إذا حولها يقول بحان كل كداغا. عوسك كل شيء يكون جيدا كردا سيدا عريعتك جيلا جيدا كردا اللوضة إذاها دميرها كواسنا لكم سيدا so قيبته هوس الكوية لها وحديها the bushes so the bushes ويبذيهن always مركا اس هذا عرقته verb كحيجاي وحنقولنا plural verb so you say the bushes are if the tree was tall get هدو ديرا bushes كم حواي short the bushes are short correct then we go to B plus a place محواي هو قبطة صاروا كله قفن ربع إن كتل ما مقول وجود تلفون على كاسو حلو قري حسن وجوجا محمد هو مغير انتو جرا سكولكا دكسيكا اسبتالكا بلا بلا Janet is at home Janet وقبر عنكو بدلنا مقع صومالين Amina is at home Amina وحيجي تقولوا مركو عندي كرا Janet is here Janet تجوكتا halkan Janet is here Bill is at the library sorry مقعاش سومالي نغطي جعلا لكن هو إيسو معقول معا يعني وقابك أوسم يسيب PowerPoint تيغا so Janet is here now is a place Bill is at the library he is at the library so we are going to see how to arrange and extend at in under where كل واحد دونا so here is a place at the library is a place so rule number 1 B comes before the place ereyga verb ka waa inuu ka soo hormara goobta aad sheegayso haddii laakiin aad ka soo hormariso tiraha Janet at the library verb ka maqan waa khalad so always B comes or B is
followed by a verb, is it by a place, or the place comes after the be. Janet is here. So here we will have one word phrase, and the third one, the second one is called what? One word phrase and those words that can take in isku qaadan karo jumlad ahaan ama jamac isku qaadan karo. Tusaale, here I have Janet is here. Janet waxay jirtaa halkan. So here is one word phrase. Janet is there is another word phrase. Janet is downtown. Janet is downtown is one word place. Janet is downstairs is one word place. Janet is upstairs is one word place. Janet is outside is one word place. Janet is inside is one word place. Inta markaad fiiriso on gadaal ka soo bilaabo, Janet is here. Place ka aan qaatay muxuu noqday? Verb ka soo hormarayo. Janet is there. Verb ka soo hormarayo. Janet is downtown. Verb ka soo hormarayo. Kulli saas u soo hormaraya verb. Okay. Jonas is outside. Odaygan waa Jonas. Intuu ku sugan yahay? Banaanka tendada. Jonas is outside the tent. So jumlada waa dhamaystiri karnaa. Anagu faahfaahin dhihi karno outside the tent waa dhihi karnaa. But now aska soo qaadan inta leeka qaadano. Luke is upstairs. So ninka la yiraahdo Luke intuu jooga upstairs. Saqafka qaybta jaranjarada kore. Then let's now see ereyga isku keenaya be-da ku xigo. Tusaale kale is at. Saan soo sheegnay day markan bilaabay on saan u bilaabay ereyga qaybtan b plus plus ka waan ka hadlay. Ereyga verb-ka ku xigi doono waxa uu yahay. So the ereyga verb-ka ku xiga ayaa uu yahay preposition. Prepositional phrase. Kii haday uu waa one word phrase, preposition ma qaadanayo oo preposition kuma darin because he is at the library. So here we will have a preposition plus a noun and a word. So Sylvia is next to Jenny. So next to is a preposition. Preposition was sida Somalida u tiraha meele. He will assure the exact place where Jenny is on Sylvia is if he will assure that the Jenny is sitting or was sitting next to Sylvia. Now if she is sitting now but the sentence is in simple is in present term, like the sort of karna was next to Jenny. Sylvia is next to Jenny. So here we'll have preposition, ereyga buluga preposition. Waxaan ku dareynaa noun. Kadib markii ereyga preposition ki noun ku isqaato alla prepositional phrase. Kii haday preposition ma lahayn wuxuu ahaa one word sentence or one word phrase on prepositional phrase ala kala. Jara is where? In the pool. In. So Jara is the noun, is the verb, in is now the preposition, is in the pool. So in the pool is what? Prepositional phrase. Leah is, where is Leah? Leah babur dul saaran tahay. Leah is on the car. She's on the car. Leah is on the car. So he is downstairs, he is upstairs, he is outside. So ereyga markuu lahayn preposition ayaa waxa la yiraahdaa one word. He's upstairs, he's downstairs, he's outside, he's here, he's there. They are all one word. Laakiin markaan dhahno she is on the car, on ku darnay, she is at school, she is in the pool. So on, at, in. Dhamaantood waxaa la yiraahdaa prepositional phrase. Waxay wataan preposition. Phrase waa jumlad prepositional phrase. Then let's practice, and I hope this will be the last part ka cashirka ugu dalkaan ku gabagabeeyna u leeyahay. So the plant is dash the table. So plant into sariya we have at, under, above, on. At
under above. The plant is on the table. Waa dul saaran yahay table-ka. The flower intuu saaran yahay on the table. Mark is, where is Mark? Mark intuu joogaa. Mark is downtown. Mark is downtown. Beth is dash school. At school mia, under school mia, next mia, on mia. Beth is at school. She is at school. So the table and chair are dash the tree. Under the tree. The table and chair are under the tree. So I hope that will be a perfect lesson for now. This is the second lesson. Dualidmo. Channel ku xirnaado. Inta nagu cusub fadlan subscribe soo saaro si gamaalkana fursi ula socoto casharada dambe aynu ku dhaafin hadda nala joogteena waxa weeye kulay waxaan rajeynayaa inaad ku xirnaan doonto marka wixii talo iyo tusaale aan la wadaagi kartaa adigoo adeegsanaya marka commentiga wixii marka ayada casharada loo baahan yahay emailkan soo dhigay hadduu alidmo dhammaan nin walba halka ugula soo xiriir lahaa kulay waa inuu asaga inoo sheega kulay commentiga ka arsan doonaa then cashirkeen dambana wuxuu noqon doonaa inaan summary ku sameyno cashiradii guud dhammaan hadda aan soo wada marnay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.